waa dufcaddii toddobaad oo ka tirsan ciidamada kumaandoosta ee gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar loogu soo xidhay magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga waxaana munaasabadan ka qayb galay saraakiil ka socotay dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga ciidamada dhameystay tababarka ayaa iyaguna dhoolatus iyo gaata ka ciyaar halkan ku soo bandhigay General Maxamed Xuseen Garabay oo qaybsamaha arrimaha ciidamada ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa ka warbixiyay munaasabadan tababarka loogu soo xidhay ciidamada wuxuuna dawladda Turkiga uga mahad celiyay taageerada ay la garab joogto dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. runtii maanta waa maalin weyn oo maalmaha wanaagsan ee aan soo maray kamid ah xafladda tani ma xafladii koowaad labaad saddexaad afaraad ma waa xafladii toddobaad haddana way soo soconaysaa waxaan nasiib wanaag noo ah annagoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxdiisii iyo mas'uuliyiintii qarankaanba inaanu mar walbaba dhigahayno ay maqlayaan indhahayno ay arkayaan xiriirda tababar ciidan khaas ah oo dhalinyaro ah oo jiilka dhalinyarada ee wadankeena laga soo xulay daafiisa kala duwan inay 6 biloodba 3 biloodba halkan ay ku qaataan tababar khaas ah oo firqada danab ah tababarkaas oo loogu talagalay in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu tayeeyo aqoontiisa jirkiisa iyo actionkiisa waxbarasho ee xagga colaadaha iyo waqtiyada dagaalka runtii waa tababar loo maray habka ugu wanaagsan ee casriga ah run ahaantii waxaan indhahaynu qabanayaan tababar wanaagsan oo ka duwan tababarada ciidamada qaarkood oo ah tababar khaas ah runtii dufcaddana waa dufcaddii toddobaad ee guutada gorgor wayna noo socon doontaa haddii alla idmo in muddo ah waxay ku biiri doonaa ciidankan halka maanta tababarka ku dhameystay saaxiibadood hore u qaata tababarada ee ku sugan waddankeena hooyo waxayna mar labaad waxayna lab jaal noqon doonaa ama ay ku biiri doonaan in ay la howlgalaan lana faltamaan saaxiibada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan waa guul runtii aad u ballaaran ummadda Soomaaliyeedna ay og tahay safaaradda Soomaaliya ee waddankan Turkigu waxay habeenii maalin ku bixisaa adeegeeda iyo howlaheeda sidii iskaashiga wanaagsan ee militariga ka dhaxeeya waddankan iyo waddanka Soomaaliya oo horumari lahaa iyadoo loo marayo habka wanaagsan iyo wada shaqeynta dhow ee alla leenahay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda gaashaandhigga waddankeenuba labadaba ay isleeyihiin iyo wasaaradda gaashaandhigga waddankan Turkiga taa macnaheedu wada shaqeynteedu waxay abuurtay ay dhalisay kalsooni sidaas darteed waxaa maanta farxad weyn noo ah anigoo ku hadlaya magaca safaaradda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda gaashaandhigga anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidanka qalabka sida waxaan leenahay hambaliyo ayaan leenahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ay noqdaan dhalinyarada tani kuwii dalkooda uu ku diirsado shacabka Soomaaliyeed ee la tabaaleysan amni daradana inay wax ka bedelaan waqtiyada soo socda waana ka bedeleen runtii haddana way ka bedeli doonaan waxaan ku hanweynahay inay si dhow ula shaqeyn doonaan shacabkooda walaalana ay ka dhigan doonaan garabna ay u raadsan doonaan shacabka Soomaaliyeed kalsoonidoodana ay kasban doonaan Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish magaalada Ankara